نبى شلي يمد وشلي صباح قلن كي هرو آخر ساعة 5 ساعة ميلها ساحي نين ساحيب كيسها مالين دويتو قصة كل عدي إيجا شيكي مرقاسان وحان كويري وحان ربي لها أساقا لفتكي سينا نكوريو أو آن أرض ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyay qisadii aan saaxiibkii iska maqlay siday ahayd buu igu sheegay wuxuu yiri dibadaan joogay Canada habeenkii baan seexdaan oo iska caafimaad qabo fiyow ilbaa idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkay dhag bay tiri خلاص waa seexad wax yar ka bacdi tii kalena waa damtay labadii indhood dambay noqdeen wiil yar oo dhagalaaba ii joogu yiri haweentuna shaqay aada telefoonku hadaa dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xanuunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag ana degdegaha la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii daba dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weey inaad wadatid ay ku hogaamiya oo aygu aad ka haysatid aygaas aad gadatid iyo inaad u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid u yeel waqti kala haysan anoo xaaladii labadii midna aan sameyn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay kambuu markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray wiil adhib alba'sa rabb an-nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatul leyl baan u soo kacaa salliga aan haysto dhinaca qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhigama saa u taabtaa oo iska tukadaa ducadaana ilaahay baan ku baryaa oo ku tuuba 3 bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatul leyl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday salligii laftigiisii baan isku tuuray salaadii subxiga oo aan la gaarin subxigii markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay wiil haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhood baba waa siday bari hore ahaan jireenba Allahu akbar waa siday bari hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yar wax weyn wax iga maqan ma qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel كاسا تخصص جونية هايستا كاسا في أنصفين هل يماذا أسبابته هذا لكن قلبي يسمركي وستوصين وغحرمه خالق الأسباب إله كان يجردا إنه كحر إلهي وحليا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هدي إلهي نبكو قطعته وحكا كشفين كراكا قاعد كرمال إلا أسجم ويان أسجم كان يوم بقاعد وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هدي إلهي خير كو أصيبه كو تعبتنا وحد وقانا يسا إلهي وحكستين أول